السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلنا هادين مهتدين. إله نغدك كوها نوصان dadkana hanuuniya dhammaan dadka Soomaaliyeed barnaamijka gufaaco ka daawanaya Somali Canadian TV kana dhageysanaya Radio Borame CKMS 102.7 FM maanta waa maalin Sabti ah bisha August 2026 barnaamijka maanta waxa marti noogu ah aqoonyahan siyaasi wasiir hore xildhibaan hore intaba oo aan dadka ku cusbeen waa Dr. Sakariye ummadda Soomaaliyeed waxaad ogtihiin wixii ka dhacay shirkii Kambaale ee shalay shirkii Afrika ee ahaa waxaad ogtihiin shaqadoodu inay tahay arrinta ku saabsan ilaalinta nabadgelyada iyo tababarada ciidamada haddaba dadka barnaamijkan dhageysanaya waxaynu ka wareysanaynaa arrinta iyada ah Sakariye oo Allah Dr. Sakariye ku soo dhawow barnaamijka gufaaco arrinta iyada shalay sidaad u aragtaa ka dhacday Kambaala. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلامتهاي أديك إيو شعب الصوماليات وداونيا تلفزيون soo dhawaada halkan warbaahinta Somali Canadian TV iyo sidoo kale Radio Borama Mujada FM 102.7 FM waxa barnaamijkan ama warkan soo saaray Xamed Sudan Cali Cilmi tiftiraha guud ee Somali Canadian TV ahna agaasimaha Radio Borama 102.7 FM kan iyo raadiyaha isku jira warinta shalay arrin la yaab leeyahay waxaan aragnaa maqalay maaha waana wax muddo socday bal horta yani mashruucan ciidamada jooga Soomaaliya kaaga waramaya yani hadda ilaa 15 sano ay marayaan waxay baabi'iyaan maahana wax kalena lama hayo sideedana any project mashruuc kasta ama program kasta markuu sanad ama 6 bilood socdo waxa lagu sameeyaa dadka hawshaas iska leh oo loo adeegayo oo mashruucaas uu adeegayo waxa lagu sameeyaa wax la yiraahdo evaluation dib u eegid waa la qiimeeyaa muxuu soo kordhiyay muxuu bi'iyay muxuu khalday muxuu saxay ilaa hadda nimankaas cid la xisaabtantay ma jirto hay'adaha caalamiga ah oo humanitarianku waxay ka qoreen waad ogtahay haday gabadha kufsi tahay haday indiscriminate iyadoo aan sina loo aaba yeelin dadka Soomaaliyeed inay u laayaan iyo xoolaha waxyaalaha la yaab kale waxa weeye originalki keenida mashruucaas baaba khaladaha waayo Soomaali kaale iga celi anoo Soomaaliya adoo Afrikaana kaale Soomaali iga celi oo dalka aan shaqo ku lahayn oo luuqyadiisa iyo geedihiisa iyo toomihiisa iyo buurihiisa iyo baddiisa midna aan shaqo ku lahayn oo dadka hadalkiisa iyo dhaqankiisa midna aan shaqo ku lahayn oo waliba inta badan ay yihiin dad aan isku diinahayn kaalayo iga celi walaalkay baaba khalad ahayd Soomaali baa iska celin kara kama celin karo nin ajnabi mashruucan waa faashil waa mashruuca adduunka ugu faashilsan oo iska socda oo lagu lacag qaato oo dadka yagii xataa karaama dad isla weyn baanu ahayn dad madax iyo madax la'aanba markaad soo gashay airportka gacmaha kor u taagaysa Soomaalidu ma ahaan jirin dad ajnabi gacmaha ugu taaga waliba iyagoo dalkooda jooga wax badan oo isku jira weeye waxa weeye ma kala saari karo nin ajnabi ma kala saari karo qof Soomaaliya oo kan la dirirahayo iyo kan aan la dirirayn inta reer baadiye ku dhimatay inta xoolaheeni qaxeen inta hadda ma diyaaradahan hadda droonka ah oo muxuu ahayd Mareykanku isticmaalayaan waa barakicin baadiyahana la ka barakicinayo annaguna baadiyahan ku nool haddaan reer baadiyanahay iyo haddaan reer magaal nahay hilibka iyo caanaha xoolahan ku noolahay magaalada beero ma beerano waad ogtahay beeri waa laga barakacay kow xoolahaasaanu geynaa carabta waa ka iibsanaa bariis iyo baasto iyo sokor iyo waxaan ku soo gadanaa bur Sooma waa barakicin 5 sano u dhameysay hay'adda u qaabilsan gurguridda bini'aadanka iyo magaalada dadka gala urbanizationka waxay soo saartay reportkeeda akhri dadka ugu badan oo baadiye ka qaxa oo magaalo gala waa Soomaali magaalada maxay yaala marka
marka barnaamij ujeeddaa weeye cid madaxa oo wadaniyiina oo garata intaasna ma hayno oo tiraahdo war naga baxa idinma rabnee annagoo ama aan islayno ama aynu heshiinno ama aan kala adkaanno nadaaya sawa adig shabaab yay ku dhex jiraan shabaab dadka soomaaliyeed bay ku dhex jiraan tuulooyinka iyo baadiyahay dhex yaacsan yihiin nin shabaaba markii la dilo nin rayida ama 10 rayida ama qoys rayida oo agtiisa deganaa baa la dilaya soo ma adeer arrintaani waa mashruuca ugu faashilsan in 21st century oo bini aadan iyo dawlad ay samayso markaasaa inta loo tago la baryahaya oo yaa u tagahaya ninka dalka u sarreeya inta u taga baryahaya oo jilbaha qabsanaya what is this maxay tahay waxaas adeer mashruucaani mashruuc yani inta mushkilo nagu socota oo dhibaato nagu socota yuu ka mid yahay weliba ugu daran yahay kan ugu daran yahay iyo inta annagu aan is yeelayno intaba iyadoo kooban waxaan kuu sheegay waxaan mashruucan ah ciidamada ajnabiga ahi waa mashruuca ugu xun oo laga fuliyo adduunka korkiisa iyo soomaaliyaba ciidan waxaa la geeyaa oo la dhex dhigaa 2 ciidan oo dirirhayo oo la yaqaan mid walba meeshuu joogo intuu hub haysto juqraafigiisa wixiisa kulli la og yahay laakiin ciidan iyo dad ku dhex jira shaqo iskuma laha dagaalka aan ku jiraa ma ahan haddii alla ku ray waxaa jira wax la yidhaahdo dagaalku waa 2 nooc weeye nooc aan caadi ahayn iyo nooc caadi ah nooca aan caadiga ahayn waxaa lagu diriraa waxaan caadi ahayn tactica aan caadi ahayn nooca caadiga ah waa 2 ciidan oo la is yaqaano oo dirirhaya 2 dawladood oo kala ah ama 2 gobol oo isku soo duushay laakiin midka kan ah ragtaaga ah oo dadka ay ku dhex jiraan qaab kale waxaa la isticmaalaa ilaa 5 istaraatiijiya la isticmaalaa intelligence uu ka mid yahay wardoonku uu ka mid yahay macnaha uu ka mid yahay dhiirigelintu ka mid tahay kala xodxodashadu ka mid tahay kala jabintu faktarka hubku waa hal mid ah dawladda khibrad markaa la sheego dawladda Sacuudi Arabiya 2003 ilaa 2008 baa arrintaan oo kale ku dhacday intay hub qaadatay oo taangiyaal qaadatay oo dawladda u yeertay ma weerarin markay meel ciidan joogaa ma jiro dadka ku dhex jira weeye 5 istaraatiiji bay raacday meediyaha ka mid ah meediyaha in lagala hadlo meediyaha yani waxaan ka wadaa warbaahinta waxaa ka mid ah dadka waalidkood in la raadiyo la sasabo waxaa ka mid ah in iyaga la dhiirigeliyo la kala jabiyo waxaasoo dhan ba waana hawl Soomaaliyeed weeye laakiin askar kale aan u yeeranayaa oo ajnabi ah ayagii baa baqay adiga ka baqay xataa adiga inay xabad ku dhuftaan sakadiye wax rabaa inagoo barnaamijku gabagabaya waxaad ogtahay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya shalay uu hadlay shirkii madaxweynihii hore dheh waaye barka uu hadlay wuxuu ka hadlaynaa waxay ahayd runtii anigu markaan arkay hadalkiisii wuxuu ahaa hadal qiimo badan sababtoo ah khilaafka Soomaali dhexdeed Soomaalidu hore waxa uu jiray gacmo geldiro hoos baa loo dhaqaa arrintan noocaayada aragtay ee ahayd nabad ilaalin Soomaaliyeed inay ka dhigaan siyaasad khilaaf Soomaaliyeed inay ku xalilayaan arrinta iyada adigu sidoo aragtaa hadalka madaxweynaha adigoo barnaamijka soo koobayo oo aanu gabagabadii barnaamijka ku jirno فيري dadka waxa tamwiih baa carabiga lagu yiraahdo waxaas habaabin baa la yiraahdaa xasan sheekh dawlado kale oo ajnabi ah oo ka xog badan kuwan oo diyaarado wata oo shacbiga Soomaaliyeed ku duqeynaya bay iyo bakool ayuu haystaa kuwan waa ka maarmaa Soomaad garan hadduu daacad yahay waxa la rabay inuu yiraahdo dhageysta duuduubta shadaafadiina duuduubta kuwa kale oo turku ka mid yahay idaafa ciidamada Soomaali fiiri yani maalin walba in baan loo sheega ma adeero waa ka koray waxaas waa laga koray waxaas xasan wax guulo uu soo hoynahay male waayo xasan galabna waa qof subaxna waa qof isagaana sheegay ilaa haddana inta uu sameeyay dhan weyn ognahay iska daba ka wareega waa kan gobolada ku duulahaya oo hadba meel qabsanaya oo hadba dad Soomaaliyeed isku leenayo ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed dhexdiisii
kuwa xagga joogay iyo kuwa halkan joogay inta duula u aadaya gobolkaas ku duula leh maxay tahay marka ciidamada ajnabiga uu ku aguureegaya maxay tahay iyaguna dadka ilaaya miya adeer arrintaani khatar weeye qori iyo qaacis waa la isla tuuraa xasanna xukunkiisi waa ka dhammaaday ha iska tago nimanka kanna dalka laga cayriyo ummadda soomaaliyeedna ha isdabirto way isdabiri karaane mushkilado tiro badan bay soo mareen oo iska dabireen ummadda soomaaliyeed kacdoon baa u habboon wax kale u habboon ma jiraan ay gacanta is haystaan oo nidaamsan maxaad hadda ku gabagabaynaysaa barnaamijka dadka waxaan ku gabagabaynayaa sidaan kuu sheegay ciidamada ajnabiga uma aanan baahnin kuwa kale oo carrada laga soo buuxinayo oo muxuu ahaa dowlado tiro badan oo weliba ilaa 5 dowladooda uma baahnin waxaan u baahannahay musaalaxa dhexdeenna ah waxaan u baahannahay dadka Soomaaliyeed inay kacdoomaan oo iska ridaan dadka aan xukunka dadka bi'iyay oo tiro badan gobollo leh oo caasimad leh waxaan u baahannahay new blood dhiig cusub baa loo baahan yahay oo ah thawri ah kacdoon ah wax kale loo baahan yahay kacdoonka midnimo lagu soo biiro dadku gacanaha hays qabsadeen walaalnimadii ha soo noqoto midnimaan raadinaynaa anagu ilaahay baana naga dhigay waa tuuray tiibaan soo celinaynaa waxaa loo baahan yahay taasaa la isku xorayn karaa min lowyacdo ilaa libooye inta jamhuuriyadda soomaaliya la yidhaahdo oo aan qabo inta kalena inay soo raaci doonto ka maqanin dhammaan dadka barnaamijka difaaco ka daawanaya Somali Canadian TV kana dhageysanaya Radio Borome CKMS 102.7 FM waxaan ugu mahadnaqayaa Dr. Sakariye oo ah kacdoonka ummadda Soomaaliyeed loogu baaqay ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogtaan waxaan idinku baaqaynaa midnimada waxaan idinku baaqaynaa in ummadda Soomaaliyeed ay kala maarmin halka barnaamijkaad ka daawanaysaan waa Somali Canadian TV waa Radio Borome waanigoo tafaqatiraha oo ku sugan studio-gaanu ku leenahay dalkan Canada waxaa barnaamijka igala qayb galayna waa Dr. Sakariye assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وهذه أدوى ما سنتهي ولا الحامد سلام عليكم